daawade weligaa ma maqashay waddanka Benin haddaba ku soo dhowaada baro caalamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ku soo dhowaada mar kale baro caalamka. Waxaan halkan maanta idinkugu soo gudbinayaa anigoo ah Bishaar Hurre macluumaad ku saabsan waddanka Benin ee dhaca galbeedka qaaradda Afrika. Waxaan xalqadeennan u kala qaadi doonaa dhowr qaybood oo kala duwan sida falanqaynta calanka dalkan, dhulka uu dalkani ku yaallo, qaab dhismeedka dhulka, dadka, iyo ugu dambeyn cilaaqaadka uu dalkan la leeyahay waddamada dhiggiisa ah. Haddaba aan ku bilowno. Calanka calanka waddanka Benin waa mid aan sharax badnayn. Wuxuu ka kooban yahay keliya saddex kalar: cagaar, jaalle iyo casaan. Cagaarka iyo jaallaha waxay u taagan yihiin ama tilmaan ka bixinayaan dhulka bannaanka ah ama garowga ah oo uu geed timireedku ka baxo kuna yaalla koonfurta dalkan. Casaankuna waxaa lagu xusaa dhiiggii halgamayaasha u dagaalamay xorriyadda dalka Benin. Dhulka waddanka Benin wuxuu ku yaallaa galbeedka qaaradda Afrika, wuxuuna ka mid yahay waddamada ka hooseeya dhulka lama-degaanka ah ee Saxaraha Afrika. Sidoo kale, wuxuu dalkan deris leeyahay waddamada kale ah Togo, Burkina Faso, Niger iyo Nigeria, waxaana dhanka koonfureed kaga beegan gacanka Guinea. Caasimadda waxaa lagu magacaabaa Porto-Novo, laakiin xarumaha dowladda inta badan waxay ku yaallaan magaalada u dhow ee la yiraahdo Cotonou. 12 gobol ayuu dalka Benin ka kooban yahay, inta badan shacabka waddankaana wuxuu ku nool yahay koonfurta dalka. Qaab dhismeedka dhulka dhulka Benin waa dhul siman ilaa laga gaarayo waqooyiga dalkaas, oo halka laga helo buuraha Sogbaro, kuwaas oo dhulka ka koreeya 650 mitir ama 2200 oo fiid. Cimilada dalkan waxay u qaybsan tahay laba cimilo oo kala ah midda koonfurta iyo midda waqooyiga. Koonfurta waa halka roobka badan uu ka da'o. Dhanka kale waqooyiga isagu waa meesha uu waddanka xuduudda kala leeyahay Saxaraha oo roobkeedu yar yahay. Dhaqaalaha waddankan wuxuu ku tiirsan yahay beeraha iyo wax soo saarka. Waxaa sidoo kale buuraha laga qotaa dahabka iyo macdanta kale. Dadka Benin waxaa ku nool dad gaaraya 10 milyan oo qof. Waxaa ku nool dalkan 42 qowmiyadood oo kala duwan, sida qowmiyadaha Fon, Yoruba, Aja, Fula iyo kuwo kaloo badan. Xilligii barasimaadkii ee uu socday ka ganacsiga dadka ama addoonsiga, qabiilada maanta ku nool dalkan ayaa loo iibgeyn jiray waddamada Caribbean-ka loo yaqaano ee qaaradaha South America iyo North America u dhexeeya, iyo sidoo kale qaaradda South America laftigeeda, halkaas oo ilaa maanta faracoodii ay ku nool yihiin. 50% shacabka ku dhaqan Benin waxay haystaan waxa la yiraahdo diin dhaqameedka, halka 30% ay haystaan diinta Masiixiga. 20% ka soo haray iyagu waa dad Muslimiin ah. Waxaa sidoo kale ku nool dadka cadcad ee Yurub ka yimaaday si ay u faafiyaan diinta Kiristaanka. Saaxiibada waddanka Benin, sida ay inta badan ka dhacday galbeedka Afrika, waxaa gumaystay Faransiiska. Kadib markay hanatay xorriyaddeedii, Benin waxay soo dhaweysatay Midoogii Sofiyeetka, waxayna qaadatay nidaamka Marxist ee bulsho wadaagga ku dhisan. Si kastaba, saaxiibka ugu dhow oo ay Benin leedahay waa deriskeeda Nigeria, oo qaar ka mid ah xuduudahoodu ay isku furan yihiin. La soco baro caalamka oo ha ka harin. Waxaan marka xiga ka hadli doonaa waddanka Bhutan.